asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii 12aad. uu qarqartiyey markay fuushayna hogaanku qabta wuu kaxay wax juuqoo hadaloo dambe inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun mayaane wax hadaloo ninkaasi yidhi ma jirto bay tiri. sidii u waday ayuu safwaan ibnu lmucatal ciidankii u geeyey. ciidankii markuu geeyeyna nimankii munaafiqiintaha war bay bilaabeen ay leeyihiin caaisha iyo ninkani way isla hadheen. warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan, saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan. murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhex geliyeen. nooc min tuhmana way yaro muuqataayo dee gabadhan iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yaroo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafaafiyaan. warkii wuu tiro bato. ninkii hadeer qur-aanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaadoo uu shaqada ka bilaabo oo ah inuu nebiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha iyo abibakar iyo reere aan runtii reere ceebeed ahayn. gurigii abibakar iyo gurigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadan ba labadii qofo ugu khayrka badnaaya ayay ceeb markaasi uu bilaabay. warkii baa la isgaadhgaadhsiiyey. warkii markii la isgaadhgaadhsiiyey dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay. munaafiqiintii iyo wixii oo dhammina waa isgaadhgaadhsiiyeen. waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si kayru caadiya ay u faafto. dadka intii wax magaratada ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadqaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen. nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kamuu odhana wuu aamusa. muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyi kaga soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam. warkaasina uu magaaladii madiina daafaheeda xulay oo laysu wada sheegay oo saxaabadii iyo dadkii laysu wada sheegay. dadkii qofba mawqif buu iska taagay. markaas dadka badh iimaan uu qanjaab buuxiyey oo yidhaahda waxani macquul maaha. abu ayub alansaari baa loo sheegay subxaanaka maa yakunu lana an natakalama bihada subxaanak hada buhtaanun cadiim baa axaadiista ka warisa bukhaariyo inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray abu ayub alansaari. waxaas wax lagu hadla maaha buu lahaa. kaasina inay been cad tahay waa iska caddahay buu leeya, yani been lasoo malaasay inay tahay. dadka badhna waa aqbaleen oo waa wadwadeen. dadka aqbalay waxaa ka mid ahaa musbax ibnu asaas. musbax waxaa dhashay islaam ay habarwadaagiyiin abibakar sidiiq. marka abibakar habarwadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen. isaga abubakar baa beeliya, laakiin waa nin bedriyana raggii beder ka qayb galay. laakiin warkan dadku uu akriya marmar unbay dadku iska rumaystaane wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay. waxaa ka mid a ragga warkan runta mooday faafiyey xasan ibnu haabit, shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. ninkii nebiga difaaci jiray gabayaagii ugu weynaa muslimiintaba ayaa ka mid a nimanka warkan loo hoosgeliyey ee runta mooday ee iska qaatay. dadka warkan runta mooday waxaa ka mid ahaa xamna bintu jaxsh. xamna wayana gabadh khayr badan ahayd oo haweentii uu ka shahiidoobay muscab ibnu cumayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale cabdilaahi ibnu jaxsh walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa xamza binu cabdilmualib. raggaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo hololabiyey bay ka mid ahayd. weliba walaasheed way dhowrsatay. walaasheed waa zaynab bintu jaxsh. zaynab oo nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo zayd ay kala tageen. gabadhan bay walaalahaayeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu wuu weydiiyo bal arrinkan ka warran buu ku yidhi. waxay ku tihi axmed samci waa basari, anigu dhegteediiyo ishaydaan ilaashanaya. yani haweentaa waxaan ka maqlay iyo waxaan ku juunsanay midna ma jirto. saasi daraaddeed dembigan la wadwado. laakiin un malaa gabadhan unbaa la hinaastay walaasheed un hinaasa u qaado warka qolada qaadqaaday bay ka mid ahayd. warkaasi magaalada xoog buu u galay. isla markaa caaishana mabay maqalba. sheekadan iyo sida loo wado oo dhan caaishana warkeedu maba soo gaadhin. walidaalika waa caaisha tilmaamaysa xadiiskii bukhaari
waan xanuunsaday bay tiri dabeetana waxba maan dareemin ilaa iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam ludfigii badnaa jajabnaantii badnaa ee aan ka dareemi jiray ayuun baan ka arki waayay bay leedahay waanay xanuunsanaysay oo way xanuunsatay marka waxba kale warkana loomama sheegino maan maqal habeenada ka mida bay tihi ayaanu aniga iyo ummu mistax baa israacnay mistaxa kan qolada warka sheegtay hooyadii iyo caaisha israacay oo habeenkii dabadda ugu baxeen carabtu waagaa hore caaisha waxay leedahay waa intii aanan guryaha bahalladan ka qodan bay leedahay oo barigii hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii yani musqulahan guriga dee docdiisa in meel lagu saxaro dhigto lagaga samaysto way sida reer miyigeen oo kale way ka faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkii qura in la baxo habeenkii in dabadda loo baxo la soo noqdo waxay leedahay intii aan kaniifka af carabiga waa godkan yare musqushahay intaan godkan guryaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga iyo islaantii dhashay mistax baa israacno dabadda u baxnay markaanu dantayadii soo dhamaysanay bay tidee soo noqonay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turturrato way kuftoo kale markaasay islaantu waxay tidhi tacisa mistax baa hoogay ayay tidhi inankeedii bay sheegaysaa yani waa iska ahalhays ay leedahay caaisha waxay ka xanaaqday ninkaa la habaaraya ma waxaad caynkaa ku leedahay bay tihi nin beder xaadiraad waxaa ku leedahay caaisha markaa mistax bay difaacaysa oo waxay leedahay mistaxoo bederiya oo raggii beder xaadiraya ayaad waxaa kula hadlaysaa miyaaba islaanta ku leedahay islaantiiba markaa tihi naa hoogta miyaad waxbaba ogeyn ninkanaad difaacaysa miyaad ka war haynin maxaa jira markaasaa caaisha warkaba loo akriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaarsiin ma oga xataa in wax laga sheegay ma arka habeenkaasa warka ay islaantani ku akrido ay leedahay inaa ninkaad leedahay difaacaysa aad leedahay waa bederi miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxaan sameeyey halkaasaan oohin ka bilaabay baa caaishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaasi u dumay bisha hore waxba kamay warhaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxaa la yidhahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii ku soo dhawaayey guriga la joogi jiray cali iyo usama bnu zayd buu wax weydiiyaa la yidhi cali buu yidhi waa bal waran cali wuxuu eegay qadiyada tan iyo cidhiidhigay nebiga ku haysta calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraaxa uma odhan baa la yidhaha lakin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisa iyo dumarku waa badan yihin ee de maxaa ciqaabtan iyo mushkiladatan wuxuu eegay nebiga siday qadiyada tani dhib ugu hayso dabeetana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyadeedan uu sidaa ku dhameeyo usamata bnu zayd wuxuu sheegay baa la yidhi isagu ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu u tilmaamay gabadha tani inaanu wax xumanaa ku ogeyn gabadh fiicanna inay tahay guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xumaa alla ku sugeyn inuu hayo oo aanu gabadhan sii daynin ayuu u tilmaamay usamana cali markuu qadiyada u sheegay wuxuu kaloo u sheegay baan rajaynaya in axaadiistu sheegi jirtay bal jaariyadana weydii yani midkood baa sheegay in inantii guriga la shaqaynaysa caaisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxaa la yidhi bal ka waran wax dhiba aan waa caasho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tidhi ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajiinkeeda intay ka seexato riyu ka cunaan mooyaane gabadha haddii la yidhaha wax ka sheeg anugu intaasaan ogahay bay tidhi yani habeenkii cajiinkeeda marka iska wado waa inan yaro waa ka lolootaa bay leedahay oo waxaaba laga yaaba dabaje xoolahan soo galaa inay cajiin ka cunto haddii wax lay weydiiyo la yidhaha gabadhaasi maxay ceeb leedahay intaasaan ogahay bay tilmaamay intaasina waa da un inay inan yar tahay oo loloonaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi masaajidkuu tegey dabeetana wuxuu hadlay man yacdiruni war yaa iga cudur daaraya buu ihi nin yaa iga cudur daaraya duul reerkaygii waxan iyo waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag khayr mooyaane wax kale ku ogeyn aan gurigaygana weligii imanin isagoo ila socda mooyaane safwan ibnu mucaa wuxuu nabigu sheegaya markaa caaisha iyo safwanba wuxuu ka og yahay safwanna nin khayr le inuu ku og yahay caaishana inuu yana wax xumaa aanu ku ogeyn yaa kaa iga cudur daaraya dabeetana waxaa kacay baa la yidhaahdaa sacd ibnu mucaad oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerkayaga yahayna
anagaa dilayna hadduu waa iska tirsan yahay khasraj hadduu yahayna nafar anagaa dilayna buu ku yidhi qadiyadaasi xasaasiyaddii qabaa'ilkay dib u soo noolaysiisa dabeetana sacd ibnu cubaada oo khasrajiya oo meesha isna fadhiya habaarqabuuna waa khasraj buu ka dhashay cabdullaahi ibnu ubay sacd ibnu cubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallahi inaanad ku dhicin inaanad dili karin dabeetana waa dili karnaa oo buuq baa ka dhashay labadii kooxood baa qayliyo xagga midig ka qayliyo xagga midig ka qayliyo meeshii aws iyo khasraj baaba dib isu geli gaadhay oo murankoodii batay ilaa iyo uu nebigu aamusiyey calayhi salaatu wasalaam warbal aamusa war aamusa war aamusa uu nebigu aamusiyo la aamusay dabeetana wuu ka soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho oo warkii maqashay oo waxay leedahay habeenkii markaan maqlay habeenkii oo dhan waan ooyey maalintii dambe oo dhan waan ooyey habeenkii dambe oo dhan waan ooyey lam tarqa hurdo ishayda kuma soo dhicin bay leedahay waxaan oohinahayn waa layga waayay oo xanuunkii xanuun kale ugu sii darsamay awalba iska xanuunsanayso waxaan tidhi bay tihi markii warkan lay sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkiisiiyo ii ogolow bay tihi waan xanuunsanayaan aabbaha iyo hooyaday u tageen wuu u ogolaaday waxay tihi wax kale uguma socone waxaa islaa bal hadda hubi iyaguna inay waxaan maqleen waan weydiiyey bay tihi si aan u hubiyo dabeetana warkii inuu jiro ayaa ii caddaatay bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu ii yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oohin daraaddeedii beerku bay dilaaca bay leedahay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam intuu ii soo galay buu wuxuu yidhi bay tihi caaishaay waxa iga kaa soo gaadhay warka caynka yani waxaa muuqata nebigu bishaas isna inaanu waxba u sheegin caaisha laakiin iminka markay ogaatay iyana ee oohin dayn weyde laba habeen iyo maalin ooyeyso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga aabaheediyo ugu yimi iyo hooyadeed dabeetana markaas buu la hadlay wuxuu ku yidhi caaishaay waxay soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaa iyo sidaasiya ee fain kunta bari'a fasayubri'uka allah haddaad beri tahay oo aanad dembigan geysanin ilaahay wuu ku beri yeeli doonaa wain kunti almamti bidembin ma haddaad dembaabtayna faاstakfir illaha watuubii ilayh ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo u toobadkeen buu nebigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam faina alcabda ida اctarafa bidembihi uma taaba ila allahi taaba allahu calayh addoonku qofku hadduu dembi galo oo uu ictiraafo dembigiisa qirto oo ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda wuu ka aqbalaa haddaad dembaabtayna sidaa yeel buu ku yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam waxay tidhi weedhaa markaa nebiga ka maqlay ayay oohintii iga qudho aan soo kacay dabeetana aabbahay baan u jeesta waxaan ku yidhi bay tihi u jawaab nebiga dabeetana wuxuu yidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyaan ku jeestay bay tihi oo haddana aan ku yidhi bay tihi u jawaab nebiga calayh salaatu wasalaam hooyadeedna waxay tihi waxaan ugu jawaabo garan maayo caaisha waxay leedahay markaasaan hadlay anigoo raba inaan isberi yeelo wallahaan ku dhaartay bay tihi warkan waa maqasheen ilaa iyow nafihiina degay waalidkeediiyo bay la hadlaysaa iyo nebiga calayh salaatu wasalaam waxay ku leedahay markaas wallahaan ku dhaartay laqad calimtu warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadegay oo aad rumaysateen bay ujeedaa maanta haddaan idhaahdo beri baan ahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ka ahay ima rumaysanaysaan bay leedahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ahay haddaan idhaahdo wax dembiyo aan galay ma jiro sida warku idiin degay waxay ii muuqato bay leedahay inaydan rumaysanaynin iyadoo alla og yahay inaan beri ka ahay haddaan idhaahdo waan qabaana waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo markiiba aqbalaysaan ee ilaahay baan ku dhaartay maa ajidu lii walakum maala ilaa qawla abi yuusuf caaisha waxay leedahay waxaan idhi wax kaloo aan idhaahdo garan maayo aniga idinka dhexdeeda yuusuf aabima yacquubna waan qaban kari waayey bay tii yani cadhadii hayse yacquubna inay nebi yacquub magaciisii sheegtana way garan kari weyde dabeetana waxaan idhi bay tihi wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhii yuusuf aabihii uu lahaa un mooyaane fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuuntii baan leeyahay bay tii fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waa weedhuu lahaa nebi yacquub
markii intay yuusuf godka kusoo rideen wiilasha ay yimaadeen ay yidhaahdeen annagoo cayaarayna ay cunay ee khamiiska dhiiggale ay keeneen ilaahayna u warramay de inaan saan waxu jirin ayuu wuxuu lahaa fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ilaahay baan u sabrayaa buu lahaa asbiru sabran jamiila yani ilaahay baan u sabrayaa ilaahay baana iga gargaarin waxaan aad sheegaysaa caaisha weedhaas bay tidhi sabirkii ay sabirtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku bari yeelay weliba caaisha waxay lahayd waxaan islahaa bay tidhi ilaahay wuu ku bari yeeli laakiin ismaan lahayn bay tidhi qur-aan baa samada ka soo degi doona berinimadaada ka warramaya oo abidkii muslimiintu ay akhriyi doontaa ee waxaan islahaa bay tidhi ilaahay un baariye iyo wuxuu nebiga ku tusi doonay calayhi salaatu wasalaam berinimadaada oo waa rumaysnaabay leedahay in alla ay beri yeelayeen laakiin naftayda waan iskala yaraabay leedahay in arrintayda ilaahay ka hadlo subxaana wa tacaala oo qur-aan ka soo dego dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan baa ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimid markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi caaishaay ama wallahi faqad bara'aka allah ilaahay baan ku dhaartay ilaahay waa ku beri yeelay dabeetana qur-aankii buu rabay inuu nebigu akriyo caaisha hooyadeedu halkan fadhiya waxay tidhi quumii ilay maa u kac ilaahay rasuulkiisii bay ku tidhi markaas caaisha markaa iyadoo rabta inay ilaahay keligii u mahadnaqdo ay tidhaahdo cid kale ilaahay baa berinimadayda keenay ee idinku idinkii dhanka iga wada maray ayay nebigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoonaa ayaa waxay tidhi wallahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allah u kici maaya bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay cid aan ahayna mahadin maayo yani mahad oo dhan ilaahay beri yeelay subxaana wa tacaala ilaahay oo keliya ayaanu mahadnaqaya waxaa soo degay markaasi aayaadka qur'aanka ah ee aayadda 11 ilaa 20 ee suuratu nuur ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum aayaadka ka bilaabma ayaa soo degay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramayo cidda dhibtan samaysay ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum baa ilahay kuwii been abuuradka la yimid waa koox idinka idinka mida baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala koox idinka idinka mida ayaa la timi baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala been abuuradka waa aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala kusii tilmaamayo lawlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifkum mubiin baa ilahay leeyahy lawlaa id samictumuuh hallaa id samictumuuh waar markaa maqasheen baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala maxay ugu malayn waayeen dadka mu'miniinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu malayn waayeen yani asalku waxa weeyaan dadka mu'miniinta ahi inaanay tuhmaad isu qabanin asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu beri yahay ilaa ayaan wax ku caddaadaan mooyaane walidalika ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maxay dadka mu'miniintii badhba badhka kale ugu malayn waayeen khayr oo maxay u odhan waayeen haadaa ifkun mubiin baa ilahay kani waa been cad oo la abuuray bale dadka mu'miniinta badh baa weedhan lahaa oo abu ayub alansaari waxaa la dhahaa weedhu lahaana iyadoo qur'aana ilaahay soo dejiyey subxaanaka ma yakunu lana an natakallama bihada waa weedhu odhan jiray baa la yidhahdaa abu ayub alansaari subxaanaka hada buhtaanun cadiim nusuustan iyadoo qur'aana oo ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey calaa kulli xaal ilaahay baa caaisha berinimadeeda ka soo dejiyey cirka min fawqi 7 samaawaat baa ilaahay ka soo warramay isagoo tilmaamaya inan taayare ina abibakara ee nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam inay beri tahay haba yaraatee waxana inaanay qabin dadka markay berinimadii soo degtay ee warkii caddaaday ayuu abibakar dhaartay baa la yidhi inaanan dib mistax u biilinin mistax iyo hooyadii abibakar baa biilin jiray haddana mistax wuxuu ka qayb galay waa qaldamay markanoo waxa warkii munaafiqiintu sheegaysuu run mooday dabeetana kaasuu faafiyey abibakar markaasi waxaa la yidhi waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib laysoo marin iyo warkiisa qur-aan baa haddana soo degay ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy walaa yatali uli lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala yay ka dhaaranin kuwa ilaahay dheeraadka siiyey iyo sacada ballaadhsiga siiyey inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yay ka dhaaranin alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaahay leeyahy waar miyaydaan idinba jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo yani maalin walba waad dembaabtaan oo ilaahay baa dembi ka gashaan
haddana hadhow baa gacmaha horsataan oo tidhaahdaan allahuma inaa nastakfiruka wanatuubu ilayk oo waxay jeceshiin in ilaahay dembigiina dhaafo. ilaahay baa markaa wuxuu leeya alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum, miyaydaan idinkuba jeclay in ilaahay dembigiina dhaafo? abi bakar markaasuu yidhi bala, ilaahu waa jeclay kaayaga inaad dhaafto, waxaanan ka markhaati gelaya inaan kaana dembigiisa dhaafay, biilkiisana dib u siinayo. dib buu ugu qoray, biilkiisiina uu u siiyey, ilaahayna dembi dhaaf weydiistay. qadiyadda tani runtii magaalada madiine way gelgeshay, weliba waxay gelgeshay muddo bil ah. bil baan waxyi cirka ka imanin masaladan ka warramaya. gurigii nebigana warkan iyo beentan laga akrinayay, muslimiintuna ay shakiga kan qaar badan ay qaadeen ama qaar ay rumaysteen oo warka kan ay isdhex raaraaciyeen. idan waxay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaadka iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeya say mujtamac dhisan u gilgili karaan. been iyo intay wax isku toosistaan mujtamac dhisan say u gilgili karaan. waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiintii war kastoo ku tiri kuteena inaanay dhegaysanin, hadday maqlaanna inaanay sii sheegin. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka waxaa kugu filan waxaad maqashaba inaad adna ku warranto. wixii dhegtaada kusoo dhacba aad warkeeda soo maqashaba inaad adna sheegto, kaasaa been kugu filan. waayo waxa la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska caddahay. haddii adna wixii la sheegaba aad sheegto, dembiga dee badh baa kaa soo gaadhaya. waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu war si xun u gelin karaan oo ay si maqluuba u gelin karaan. walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xaddulqadfiga ka warramaysay. in aladiina yarmuuna almuxsanaat, kuwa ilaahay tilmaamayo dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka ah, kuwa gana ee zine ku gana, in korkooda ay waajib ku tahay in la jeedalo oo 80 jeedal lagu dhufto oo weliba aan markhaati dambe laga aqbalin. nusuustaasi tirada badan lee suuratu nuur ilaahay kaga warramayaa soo degtay. dabeetana xaddulqadf ayaa waxaa lagu qaaday misbax iyo xasaan iyo xamna, saddexdaaba waa la qadfiyey. min 80 jeedal ayaa lagu dhuftay. waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyey isaga lama jeedalin, cabdillaahi ibnu ubay. culamadu dhowr sababoodba way sheegaan. culamada bar waxay yidhaahdaan habaarqabuhu waxaan oo dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan unbu warka ka dhex odhan jiray oo soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isaga waxba kama odhan jirin. laakiin qoladan masaakiinta ahay way rumaysato dee muslimiinta dhexdooda iyo dadkii mu'miniinta ahaa dhexdoodii ayay wararka ka sheegeen. dabeetana iyaga dee kays buu ku cadiyo waa la hayaa, dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la haya. laakiin habaarqabow isaga waxaa la yidhaahdaa backgroundka meel dambe ayuu wax ka soo sheegay, markaasi kaysku isaga kuma cadaanin. culamada badh baa yidhaahdaa. culamada badh kale waxay yidhahdaan maye isaga dee qur'aan baa ku soo arooray ina aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan mubiin. yani qur'aan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay. marka isaga waxaa la tilmaamayaa xad, qofku hadduu dembi galo oo xad lagu qaado waa kafaara, siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. dembiga aakhira ka dhacaya, markaa dembi dhaaf bay u tahay. isaga waxaan lala rabin bay leeyihin dembi dhaaf, isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay. xagga kalun baa loo biirinayo, isagu kiisii dhankan aakhiro ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay. culamada badhna saasay ku tilmaamaan. axaadiis daciifa oo riwaaya daciifa soo arooro yidhahda xadulqadfiga isagana waa lagu qaaday, laakiin waxba kama ansixin. waxaa cad un inaan waxba lagu samaynin. nimanka munaafiqiinta waxaa kaloo ka cad dhibtan iyo warkan ay geysteen, siday isugu dirayeen markasta mujtamaca islaamiga iyo say isugu dayeen qabaa'ilkan muslimiinta inay iska hor keenaan, iyo iyagoo saxaabaa waxaan qabiilka la ydhaha inuu khatar yahay, sida marar badan ay xaaladdu khatar u gaadhay in laysku baxsado haddaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dhex joogin oo kala qabanaynin oo kala celinaynin oo kala joojinaynin. iyo inuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam in unsur akhaaka aaliman aw madluuma buu nebigu yihi, u gargaar walaalka hadduu aalimiyo iyo hadduu madluum yahayba. laakiin berigii hore jaahiliyadu weedhan intay yidhahdaan bay si u sharxi jireen. nebigu sidiisi ka gedisan buu sharxay. garanay bay dhaha ilahay rasuulkiisa iyo walaalkay haddii la dulmiyey saan ugu gargaaraye, isagu hadduu aalimiyo saan ugu gargaara. dulmiga ka qaba buu nebigu yihi, kaasaa gargaar u ahay. walaalkaa markuu wax dulmayaa tidhaha war joogso, markaasaad badbaadisay oo aad khayr u hor kacday. ee walaalka u gargaar labada jeerba, hadduu gardaran yahayna qabo, haddii laga gardaran yahayna
toostoosi oo ka jooji xumaha uu wado labada jeerba. waxaa kale oo nusuustaa ka muuqata qofku hadduu ilaahay u sabro oo sabr dhaba u sabro oo ilaahay u tala saarto in ilaahay beri yeelayo, sidaa caaishaba inta laysugu wada tegey ilaahay subxaana wa tacaala u beri yeelay. waxa kale oo qadiyadatan ama ghaswadan aynu odhan karnaabaa ka ratibmay. wuxuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la odhan jiray juwayriya bint alxaaris ibn abi daraar. juwayriya waxay ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashee lasoo qabsaday ghaswadatan ghaswatu bani lmustalif, waxaana dhalay odaygii kaaba qabiilka u ahaa reerkan oo dhan, alxaaris ibn abi daraar odayga la yidhaahdo ayaa qabsaday. haniimadii muslimiintu markay qaybsadeen sabyigu waa caruurtii iyo dumarkii iyo wixii la qaybsanaya addoomaa laga dhigayey. markii la qaybsaday haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabigii la odhan jiray baa qayb u helay gabadha tan. dabeetana sahmigiisii markay kusoo dhacday mukaataba bay la gashay. waan xoraynaya adduun baan bixinaya ayay sii daaba jirin. waayahay buu yidhi, wuu sii daayey markaas adduunka intaan lag inay isku furato dabeetana ay xorriyadeeda qaadato. waxay u timi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ka codsanaysa. waxay sheegtay tolkeed caynkay ku dhex ahayd iyo dee reerkaba odaygii ka dhaqaaqaya inuu dhalay, iminkana inay qafaalan tahay oo dee addoonnimo ku jirto, inuu caawiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo adduunkaa ka bixiyo ayay ugu timi. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu ka bixiyey, adduunkiibuu ka bixiyey. haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa adduunkiina la siiyey oo qaatay. wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo bandhigay inuu guursado, way aqbashay. wuu guursaday markaa gabadhii wixii laga rabayna wuu ka bixiyey. juwayriya waa ummahaatulmu'miniinkay ka mid tahay. wuu guursaday. markuu guursadayna saxaabadii waxay yidhaahdeen kale, dee ma xididkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baynu addoonsan karaynaa. gaalay ahaayeen lasoo qabto dee goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa, laakiin waxay ka xishoodeen nebiga dee seediyadii iyo dumaashiyadii iyo kooxdan nebiga xididkiisii calayhi salaatu wasalaam inay addoonsadaan bay ka xishoodeen. dabeetana intii kale iyana yidhahdeen ana waanu xoray neefka taga, waa sii wada daayey. waatay caaisha lahayd, maan arag bay tidhi, famaa kaanat imra'atun acdamu calaa qawmiha barakatan minha. ma jirin bay tidhi gabadh ka barako badan juwayriye tolkeed uga barako badan. 100 qof oo reerkoodii ka mid ah loo sii daayey. 100 ahlu beyt, 100 reer oo dadkii lasoo qabtay ka mid ah ayaa lagu sii daayay iyada sababteedii. waxaa la yidhaahdaa alxaaris ibnu abi daraar oo odaygii iyada dhalay aa mar dambe magaalada yimi. isagu kumuu jirin dadkii lasoo qabtay, uu baxsaday ayuu yimi isagoo ka codsanaya bay riwaayaadka qaarkood sugayaan maraasiil sanad saxiixa laakiin mursala, isagoo nebiga ka codsanaya inuu inantiisa usii daayo. dabeetana wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyadaan doorrasiinayna, hadday iyadu doonayso inaad sii daayna waa sii daynaya, hadday rabto inay la joogtana waa joogaysa. waa la doorransiiyey. waxay dooratay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogto. kadib ayuu odaygiina iska islaamay. alxaaris ibnu abi daraar ayaa islaamay. tolkiina islaamkiibuu ugu yeedho wuu islaamay. dabeetana isagaaba tolkii sadaqada iyo zakaadka ka ururin jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu cid usoo dira ayuu usoo diran jiray. gabadhan guursigu nebigu guursaday wuxuu xoojiyey xidhiidhkii qabiilkan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhaxaynayey. reerka kanna xorayntii loo xoreeyey, dadkii laga qabsadayo wixii oo dhan loo sii daayey, waxay noqotay nooc min mu'allafati quluubihim bay noqdeenoo wax islaamka u soo dhoweeya. waayo inta laga xoog batay oo la jebiyey oo waxoodii laga qabsaday ayaa haddana mujarad la wada xoreeyey iyagoo iyagu dhib geystay. taasi waxay noqotay baa la yidhahaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo oo reer runtii islaamka aada u xoogeeya uun ka mid noqdo. dee ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suurat xujaraat ku jirtaana waa ninkay kusoo degtay sababtiisa alxaaris ibn abi daraar. waxaa la yidhahdaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd. waxaynu bilaabaynaa غزوة bani lmusطaliq ama غazwaة lmuraysic, dagaalkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku qaaday nimanka la yidhaha reer banu lmusطaliq. kutubta qaarkood ma yidhahdaan ghazwadii غazwaة muraysic. muraysic waa ceelkay ka cabi jireen ama waa meeshay degaanka u lahaayeen. musطaliquna waa bani lmusطaliqna waa qabiilka. bani lmusطaliq waa qabiil ka tirsan khusaaca oo usdiyiinta iyo maanida ah.
waxay degi jireen qudayd iyo cusfaan inta u dhaxay reerkaasina markii dambe islaamnimadiisu way fiicnaatay waana ninkaasi la odhan jiray alxaaris ibnu abi daraar oo ah odaygoodii nebigana sadaq u ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo qabiilkiisu waa qolada la ydhaha markii dambe waxaa kusoo degay aayaadkan ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawma min jahaala fatusbixuu cala ma facaltum naadimiin oo waxaa la ydhahda alwaliid ibnu cuqba oo raggii fatxu make kadib islaamay ahaa ayaa loo diray inuu xoola kasoo zakadii kasoo keeno dabeetana dhexda markuu marayo inbuu shakiyo uu iska baqayo uu kasoo noqday kadib ayaa haddana la ogaado nimanka kan haba yaraatee inaanay wax dhiba geysanin ee ninkani unun iska soo laabtay oo mushkiladu dhacday markaasaa ibnu katiir sheegaya kusoo degtay baa la yidhaha aayadan ilahay leeya in warka la hubiyo ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiq binaba fatabayanu ilahay leeya subxaana watacaala waa kuwa faasiqiinta ah hadday war idin keenaan mu'miniina iska hubiya inaydan duul ku haleelin warxumo iyo jahaalo oo hadhow aydan murugoonin si aanay u dhicin calaa kulli xaal waxaanu leenahay nimankaasi markii dambe diintoodu way fiicnaatay waxaanay ka mid ahayn dadkii muslimiinta islaamka in badan usoo dagaalamay qisada waxa ugu weyne kale aynu kasii fahmi karnaa una wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaan loo soo waxyoonin sida uu bini aadam caadiya u ahaa sa ilaahay ba uu leeyay qul inamaa ana basharun milukum yuuxa ilay bini aadam idinla mida baan ahay buu nabiga dheh baa ilaahay waxaana qof bini aadam oo idinla mid ah oo loo soo waxyoodo yani markaan qadiyadda waxyi ugu imanin waxba isba kama ogaanin caaisha iyo qisadii la sheegay iyo xaadisatul ifk iyo bil bay werwer gelinaysa aanu waxba ka haynin waxay taasi tilmaamaysaa inuu waxyiga yahay wuxuu wax ku ogaada ilaahay subxaana watacaala u sheega markaynu qisadaas kaga soo tallowno waxaynu maanta ka warrami doonaa ghazwat alkhandaq ama ghazwat alaxzaab dagaalkii taxaalufki iyo dadka bahoobay ama dagaalkii godka labadaba way yidhaahdaan culamadu axzaab ama khandaq midaynu ku sheegnaba dagaalkani wuxuu dhacay baa la yidhahdaa sanadkii shanaad ee hijiriyada shawaal yani waa markii laga soo noqdayba shacbaan bay ahayd ghazwatu bani lmustalaq waktigay dhacday kana waa shawaal ayuu dhaci doonaa sanadkii shanaad ee hijiriyada saas bay qowlu jamhuur culamaa ay qabaan culamada bad imaam zuhri iyo malik ibn anas iyo muusa bn cuqba iyo qoladana waxaa laga wariyaa sanadkii afraad ee hijiriyada inay dhacay akram diya ilcumari xafidahullah oo kulminayaana wuxuu leeyahay labada qowl isma khilaafsanee buu leeyihin waxay ku saabsan yihiin sida loo tiriyo sanadka hijriga ah oo maadaama sanadkii hijriga ahaa uu waktulhijra uu bartamaha bilaabmay rabiicul awal meelahaas oo kale uu nebigu alayh salaatu wasalaam soo hijrooday taa macnaheedu waxa weeyaan qolana bilahaasi dheeraadka way ilqaayaano sanadka dambe bay ka bilaabeen qolana waxay kusoo darsadaan labadii bilood ka horeeya safar iyo muxaram iyo meelahaasoo muxaram bay kasoo bilaabeen marka sanad buu kala horeeya tirada la tiriya yani taqwiimkan hijriga sanadkii 17aad ee hijriyada buu cumar qaatay cumar ibn khataab ayuu yidhi aynu ka dhigano hijriyada taqwiim saasay mu'arikhiintu marka haddii qoladan afarta aad qaadato bay leeyihin macnaheedu waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo masalan beder oo kale sanadkii koowaad bay dhacday inaad tidhaahdo uxud oo kale sanadkii labaad bay dhacday inaad tidhaahdo khandaqna markaa sanadkii afraad buu noqonaya haddii sida loo badayo jamhuurku ay qaataan in muxaramkii ka horreysay bishuu nebigu soo hijrooday laga soo bilaabo sanadkii hijrigaana waa beder sanadkii labaad bay dhacday uxudna kii saddexaad saasuu noqonaya marka waxay noqonaysaa sanadkii shanaad ee hijriyada inay dhacday insha allah qowlkaasaynu qaadanaynaa warka ibnu xazam nin ka mida mu'arikhiinta culamada muslimiinta aba isagu wuxuu ku tegey khandaqu iyo uxud iyo sanad qudha udhexeeyey buu isagu leeyahy culamaduna way ka badinayaan isagu wuxuu ka qaadanaya xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar ba wuxuu leeyay maalintii uxud 14 jir baan ahaa oo nebigu wuu celiyey raggii la celiyey buu ka mid ahaa khandaqna 15 jir baan ahaa buu leeyahy qoladii loo ogolaatay buu ka mid ahaa laakiin culamaa ilxadiis waxay ku jamciyaan tanna waxay leeyihin ibnu xazam horta isaga waa mukhti bay leeyihin xadiidkan ibnu cumarna waxa weeyaan marna sanadka hijriyada ee 14 sanadkii uu dhashay oo 14aadka bilowgiisii ah iyo 15aadka gabagabadiisii markaa waska laba sanadood bay leeyihin oo almost bilo yar ka dhiman ra'yiga mu'arikhiinta saxa baa la leeyahay ibnu xazam xadiidka sidii u daliishadeena xujo uma aha bay qabaan saa daraaddeed ayaa imaam albayhaqi ibn alqayim dahabi iyo imaam ibn xajar alcasqalaani culamada waaweyn oo dhami waxay qabaan
ra'yigaasi xadiidka ibnu cumar bay sidan u sharxeen dabeetana waxay leeyihin wuxuu muwaafaq ku yahay ra'yiga ay qabaan culamaai taarikh marka la isku wada daro markaynu soo duuduubno ghazwat laxzaab waa ghazwo ku saabsan marka ugu horeysa quraysh iyo muslimiintii quraysh iyo muslimiintana waxaanu nidhi xarbi ama dagaal ayaa dhexdooda muclan ahaa oo awalba dagaal bay ku jireen uma baahna marka justifications badan yani reasons badan inaynu u raadino oo nidhaahno dagaalkan wixii sababay waxaya waxaasu ahaa maadaama xarbigu uu muclan ba ahaa laakiin cumuuman waxaynu garan karnaa un markii uu dhacay dagaalkii la odhan jiray uxud ee ay si xaatima ama si kama dambaysa u guulaysan kari waayeen waxa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam haybadii muslimiinta dib u soo nooleeyey saraayaadkii tirada badnaa iyo ghazawaadkii uu sameeyey weli quraysh wadooyinkeedii tijaaradu sidii bay muhadad markaa u yihin intaasoo sariyo oo yaryar baa la saaray weli quraysh tijaaradeedii iyo shaam qabashadeedii magaaladuna waxanu dhi waa magaalo tijaaro ku salaysan bay waxeedii oo dhami weli waxay yihiin markaa wax dhib badan ay haysato quraysh markaa weli may helin xalkay u baahnayd sanadkii dambe wuxuu ka dambeeye la ballamayna waa kuwii jaray iyagu ee aan imanin iyagoo weli ra'yigaa qaba inay u baahan yihiin inay mar dambe isku dayaan inay dagaal qaadaan laakiin haddana arkay ciidan kastoo ay qurayshi ururisay inaanay awoodda lahayna inay xasmiso dagaalkama dambaysa ayaa waxay heleen baa la ydhahaa fursad kaloo cusub fursaddan waxaa abuuray nimankii yahuudda ee reer banu nadiir la odhan jiray yahuud sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegayo calankood ma kaco laba sababood mid uun la helo mooyaane inay dee taalle qaataan oo markaasi dad muslimiina yihiin iyo inay cid kale dabada ku xidhaan keligood ma badheeraan ilahay ba wuxuu leeya duribat calayhim udilla inama tuqifu ila bixablin min allah waxablin min annaas yahuudi meel ay gacan sarrayso haddaad aragta cid unba dabada kaga naban tamaantana waa ogtiin dee in maraykan dabada kaga nabay yahuud meel ay xoog badantay haddaad aragto keligeed ma taagna cid kalun bay ku nabantay yahuudi reer banu nadiir la odhan jiray waxaynu soo marray in laga saaray magaalada madiina kadib markii ay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam ama ha ahaato sababtu ugu tegey siday culamaai taarikh ku badan yihiin oo ra'yigaynu soo qadinay ahaaye hore oo ah saxaabigii ka soo baxsaday qoladii nolosha kaga hadhay ahaa ghazwadii bi'ru macuuna macuuna wixii dhacay waxaynu dhi laba nin oo qura falashalay 9 baynu dhintay baynu dhi lakin waxaan filaya inay 8 yihiin waayo waxaa jira axad saxaaba la yidhaahdo baktiga ayuu ama meydkiiba dul fulay oo meyd ahaan baa looga tegey oo ghazwatu khandaqan meelahan ku geeriyoodaan rajaynaya adigu nin wakti dambe sii noolaaya baa jira iyo camar adamri ninkii la odhan jiray waxaynu dhi ninkaasi labadii nin uu dilay diyadoodiibuu nebigu ka doonay riwaayo kalea jiro oo culamaai taarikh ay sheegaan oo istilmaamaysa sababtii ugu tegay inay ahayd inay iyagu dalbadeen inba la wada doodo 30 nin iyo 30 nin ay isugu yimaadaan iyagoo ku tashaday inay nebiga dilaan laakiin 30 iyo 30kii haddana waxay idhahdeen waa 30 nin iyo 30 nin waa isku marahaynaa way difaacayaan nimankaniya 3 iyo 3 qura 3 iyo 3dii iyagoo ku tala jira ayaa gabadh muslimad kamid ah ayaa walaalkeed oo muslima usoo sheegtay qadiyadda usoo gudbisay dabeetana saas buu nebigu ku ogaaday wax kastaba ha ahaatee reer banu nadiir waxay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam tiina way u suurtoobi weyday oo ilaahay baa nebiga ilaalinaya say qur-aanku og sheegay kadibna reer banu nadiir waxaynu qisadooda soo marray in la saaray oo laga saaray magaaladii madiine ahayd shaam iyo khaybar iyo dhankaasay qabteen odayadoodii rag ka mida markaa salaam ibnu abilxuqayq ninkii la odhan jiray iyo xuyay ibnu akhtab ninkii la odhan jiray nimankaasi riwaayaadda taariikhda qaar ka midii 20 ay sheegaan calaa kulli xaal zucamadii nimankaasi odayadoodii rag ka mida ayaa wafti u baxay leh maxamed iyo kooxdiisa keliga in lama dagaalami karne waa inaynu u soo ciidan urursanna quraysh bay u yimaadeen waxay kala hadleen qadiyadda tan waxay leeyihiin waxaanu rabnaa muxamed iyo kooxdiisa inaynu la wada dagaalano haddaanu yuhuud nahayna maciina ayaanu nahay dee aan dagaalkaa qaadno qurayshi su-aalay weydiisaan la yidhaahdaa inkastoo aynu xagga horena kusoo sheegnay kacb ibnu ashrafna inay aayaadkani kusoo degeen lakin waa nafsilqisa un waa yuhuud qurayshi wax weydiinayso oo leh idinkaa asnaamta caabuda ka saxsan aayadda qur'aana ilahay leeya alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yuuminuuna biljibti waطaaguut wayaquluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila aayadda ilahay wuxuu leeyay subxaana watacala miyaanad arkaynin kuwii kitaabka wax laga siiyey yani ahlu kitaabka ee yuhuudaha oo rumaynaya haddana sanamo iyo shayaaiin oo kuwa gaaleed ku leh
idinka ayaa ka jid fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. kuwa sanam caabudaya ay arkayaan bay ku tilmaamayaan nebi moxamed oo muwaxid ah inuu ka jid fiican yahay. quraysh iyo qolada tani markii ay wada heshiiyeen waxay ku heshiiyeen in dagaal lasoo wada qaado. waxay yidhahdeen nimanka kani weliba ciidamada kalena annaga soo diyaarinayna. wafdi kale haddana saareen oo waxay qabteen najd iyo waqooyiga. waxay u tageen qabiilkii ghatafaan la odhan jiray. ghatafaan waxay yidhaahdeen moxamed iyo madiine wixii joogay waa lagu kala tegayaay, dee waxaan idin rabnaa hanimada inaad ka qayb gashaan. quraysh oo dhan oo ciidani way soo socotaa way imanaysaa. annagu haddaanu yuhuud nahayna reer banu nadiir iyo reer banu qanuqacba waa idinla dagaalgelayaan. reer banu quraydana insha allahu arrinka waa ka dhaadhicin doonaa yuhuudda gudaha madiine joogta. waxaanu rabnaa idina inaad ku soo darsataan. quraysh way soo qanciyeen. tahaame iyo agagaarkeeda dadkii joogay way soo qanciyeen. banu sulaym nimankii la odhan jiray waa la soo qanciyey. ghatafaan nimanka ka mid ah banu fazaara niman la yidhaahda iyo oo uu hogaaminayo cuyayna bnu xisn oo ah nimankuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ballamada la soo galay hore in laisnabadgeliyo isagoo hogaaminaya. koox banu marwa la yidhaahdo. kooxo badan alxaaris ibnu cawf uu hogaaminaya la yidhahdaa. reer ashjac, reer banu asad, nimankaasoo dham way soo urursadeen iyana oo waa soo dagaal galeen. axzaab baa markaa lagu heshiiyey ciidamo dhan in laysugu wada keeno. oo waxaa lagu heshiiyey muslimka maanta xilfiga kan marka la gunto inaan wax haba yaraatee noolaadaanay jirin. culamaa taarikh qaar ka midii waxay tilmaamaan in heshiisyadaasi ay ka mid ahaayeen taxaalufkaasi axzaabtaasi ay soo sameeyeen. reer banu khatifaan oo kale muusa bnu cuqba wuxuu leeyahy waxa lagula soo heshiiyey timirta ka baxda madiine gebigeedba nus baa laydin siinaya haddaad dagaalka ka qayb gashaan. saas bay kaga soo qayb galeen. quraysh oo ciidamadeedii wadataa soo baxday. qabaa'ilkan agteeda ee u dhadhow waxay ku heshiiyeen marri dhahraan meesha la yidhahdo makiya madiine udhaxaysa inay isugu yimaadaan. waa meel baa la yidhahda ilaa 40 kilomitr bay u jirtaa magaalada maka. reer banu sulaym iyo kanaana iyo ahlu tahaama iyo axaabishtii kale xilfi wadaag ahaayeen wixii ka mid ahaa meeshaasaa la isugu yimi. dabeetana waa la soo socday ilaa iyo laga soo degayey meesha madiina. webiyada dooxooyin badan baa madiine ku yaala, dhowr iyo 7 gaadh ayaan filaya. meel ay isugu yimaadaana majmac ilakhtiyaar la yidhahdaa jira. halkaa meel abay degeen. rooma yaroo udhaxaysa baa la yidhahda juruf wa zakaaba. kutuba taarikh qaar ka midna waxay dhahaan juruf iyo kaaba. kaabaduna waa zakaaba waqooyigeeday ku taalla wasla meeshii. meeshaa meel isugu dhow ayay dhex degeen. ghatafaan oo reer banu asad iyo ghatafaan wixii oo dhamina iyana waa isa soo raaceen oo waxay degeen baa la yidhaha zanabi naqma ama buurta uxud dhinaceeda meelaha. halkaasaa ciidamadii oo dham isugu soo urureen. xagga muslimiinta markaynu noqonno dib ugu noqonno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay in lagu soo socdo. dawladda madiine waxay ahayd dawlad aada u dhega nugul, aada wax u egeegta, cuyuunteedu u tiro badan yihiin. saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaar baa soo gaadhaya in laysu soo urursaday oo lagu soo socdo magaaladii madiina. wuxuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaa inuu saxaabada la shiro, uu isugu yeedho. waana sunno uu u jideeyey dadka muslimiinta ka dambeeya. oo saxaabadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan waxyi ka soo degin ka yar iyo ka weynba uu kala tashan jiray. xataa waxaynu ka warannay xaaskiisa iyo arrinkeeda wuxuu ka yeelayo inuu kala tashanayo bacd asaxaaba. usaame iyo caliy bn abi aalib iyo kooxdan uu weydiinayay uu lahaa maxaan yeela. waa ku abu hurayra lahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof aan arkay isaga uu mashhuuro badnaa buu lahaa. qof cid la tashado oo ka tala badan maan arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaanay ahayd sunna uu dadka muslimiintaa barayo wax kasta oo dhaca inay dadka muslimiintii tala ku wada gooyaan. haddii dadku wada tashado xataa la jabo eedima timaado. waa wax yani tala ku soo baxay. way wada shireen markaa saxaabadiibu isugu yeedhay isagoo umuurtan dagaalka kala tashanaya iyo waxa la yeelaya. isagoo raba inuu ku tarbiyeeyo dad ku taracrucay cala xalli lmashaakil inay noqdaan. dad aanu haddii nebigu mar kasta isagoo nebi ilaahay doortaya, isagoo dadkan inuu caqli badan ka mid ahaa, hadduu keligii mar kasta doorto ra'yiga lagana yaabo ra'yigiisu inuu musiiba noqon lahaa inta badan. waxaa soo bixi lahaa un maalintuu nebigu geeriyoodo ama meesha ka baxo jiil askara unbu haysan lahaade. laakiin mujtamaca looma tarbiyeeyo inay askar ku ahaadaan. haddaad dadka u caqli badan tahay oo aad dadka ugu xikmad badan tahay oo ra'yigaagu ka ugu toosan yahay, waa suurtagal inaad wax kasta adigu markaad wadda halka fiican dhigto.
laakiin macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagta un jiil askara oo maalintaad adigu meesha ka baxdo waxay maamuli karaan aanu jirin. idan caqliga qiyaadada toosani waxa weeyaan si kasta talaba ha kuugu muuqato inaad dadkan aad waddo ku kobciso inay berri ku bedeli karaan, inay qiyaado noqon karaan, inay maamul noqon karaan. idan waxaa fiican mar kastaba in taalada lagula wadaago, xataa aba aragba sidii ugu fiicnay inaad saad adigu aragtaba tahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuu isugu yeedhay saxaabadiisii isagoo raba inuu ka soo saaro rijaal. runtiina raggii taariikhda qoray islaamigii waxay ahayd kuwuu nebigu gacantiisa ku tarbiyeyey ee sagiire iyo kabiiraba kala qayb galay, wax walba uu tala wadaagta ka siiyey. arrintii markii laysla eegeegay culamaai taariikh masalan sanadkeeda xooganayn bay sheegaan oo ah salman alfarisi saxaabiga la yidhahda inuu u tilmaamay in uu god la qodo maadaama ciidanka madiine kusoo socda uu aada u tiro badan yihi, qabaa'il aada u tiro badanna ay yihiin, tobaneeye kunna lagu tilmaamay inuu gaadhayo. waa ciidan aada u badan markaa. si ciidankaasi loola dagaalami karo khitad difaac oo adag waa in la sameeya. ra'yiyadii meesha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa baa la yidhi markaa ra'yigaasi salman alfarisi oo ah haddii nalaga xoog bato oo naloo salmaan nin carbeed ma ahayn, maadaama aanu nin carbeed ahayn waa nin xabaaro kale ka yimid. salmaanna culamaai taarikh waxay ka sheegaan dadka bini aadamka dadyo ugu da'da weynaa buu ka mid ahaa. culamaai taarikh waxay qoraan ama kutub saxaaba waxay tilmaamaan 250 sano inay daadiisu dhaaftay. waxaa kuugu filanba 7 wadaad inuu la soo noolaado 7diiba geeriyoodeen oo kadib isagoo diindoona uu magaalada madiine yimid, dabeetana la qafaashay oo la iibiyey ilaa iyo madiine isagoo jooga uu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam oo saasi ku islaamay. salman alfarisi markii dambena hirsh iyo eeraan raggii furanayay buu ka mid ahaa. marka nin da'diisu aada u weynto 200 dhaaftay buu ahaaba la ydhaha. calaa kulli xaal salmaan ra'yuu keenay ah anagu haddaanu reer bershen waa nin xabaarad kale ka yimid eeraan oo labadii dawladood ugu waaweynaa markaa dunida ka tirsan. anagu buu yidhi dhulka iyaga markaa ciidina soo wararsan aanu aragnay nalaga xoog badan yahay waxaanu samayn jirnay khandaqna god baanu isku wareejin jirnay magaalooyinka. yani magaalooyinkii hore waxay lahaan jireen suur ku wareegsan, meelaha haddee laga soo geli kariya waxaasoo dhanna god baa lagu wareejin jiray. qaarkoodna god baaba suurka dayrka magaalada dushiisa ayaa god lagaga samayn jiray. qaarkood biyay xataa kusii wareejin jireen si aanay u suurto gelin magaaladan in ciidan furan karoo lasoo geli kara. wuxuu yidhi anagu markaana lasoo warra nooca kan god baanu samaysan jirnay. waxaa la eegay markaa magaalada madiina qaabka u dhisnay. madiina labada bariga iyo galbeedka 2 xarraa kaga yaalay, koonfurtana basaasiin baa kaga taalay. waqooyigoo qura furan markaa oo meel laga soo geli karaa, jabal uxud iyo xagga ay ka xigaan. waqooyigoo qura ayaa magaalada madiina dhanka laga soo geli karay. dhanka kale waa dhan inta badan degaankii iyo beerihii iyo buuro xaraadi ay isku xidhan yihiin. maadaama ay 3daas shay isku samaysan yihiin waxa adag in fardoolay iyo geel dad fuushan iyo waxaasi ma soo geli karaan. ciidan yaroo luga iyo meelaha dadka soo dhaadhaca mooyaane ciidan kastaan u ballaadan dhulu soo mari kara maaha. dhulka quree la soo mari karaa waa madiine xaggeeda waqooyi. xaggeeda waqooyi markaa go-aana baa la qaatay in khandaq la qodo, in dab la sameeyo. khidada difaaca ah ee uu soo bandhigay sida ay culamada taariikh wariyaan salman alfarisi wax mucaarada may sheegin culamada kale. waxaad moodaa in ra'yigaasi la qaatay, waayo waxaa muuqda uxud iyo dhibtii muslimiinta soo gaadhay iyo maanta sida muslimiinta looga tiro badan yahay. mujtamaca madiine oo aada u yar, lagaba yaabo mujtamaca madiine ku nool oo dhami ciidankan ba inaanu gaadhin marka rag iyo dumarkiisa iyo carruurtiisa iyo wixiisaba lasku daro. ay habboontahay markaas kullamaa la kala fogeyn karo labada ciidan oo wax laysku tuuro mooyaane safafka aanay isdhex geli karinba waa mar kastoo muslimiinta ay faa'iide joogaan. ra'yiga kan baa la qaatay. god baa la qoday markaas labada xarra isku xidhaya, labada buurood ee guban ee hareeraha ka xiga god isku xidhaya oo xagga waqooyi oo dhan magaalada ka maraya. markaa godkaasi labada dhinac isku xidhaya culamaai taariikh axaadiis badanaa sanadkooda xooganayn bay ka soo arooriyaan inta uu leegyahay. waana waxyaabaa la iska tasaamuxi karo fi taarikh, waayo caqiida iyo shareecatona kuma saabsana. marka haddaynu sheegno waxa ay sheegaan waxaa ka mid a waxay dhahaan godku ilaa 5,000 oo dhudhun buu dherarkiisu ahaa, ballaciisuna ilaa 9 dhudhun buu ahaa baa la ydhahdaa. hoosna waxay ku tilmaamaan 7 ilaa 10 ayuu udhaxeeyey inta hoos loo qoday. idan waa god aada u weyn, god xagga
5,000 oo dhudhun gaadhaya oo ballaciisaasi uu godku yahay 9 dhudhun yani waa meel aan awr iyo wax ka tallaabi karin fardaara faras inta si gaar loo carbiyey mooyaane ciidan caadi waa meel aan mari karin hoosna u qodan 7 dhudhun ama ilaa 10 dhudhun u qodan waa godaad weyn waliba waxay sheegaan 10kii saxaabiga 40 dhudhun baa la yidhi qoda 10kii saxaabiye kastaba 40 dhudhun ayaa la yidhi qoda muhaajiriintu waxay yidhahdaan dhinaca xigta bariga ayay ka soo bilaabeen ilaa iyo xusna dabaab ay soo gaadsiinayeen ansaartuna waxaa la yidhahdaa dhinaca galbeed bay ka soo bilaabeen ilaa iyo iyana xusna dabaab xusniga la yidhahda ayaa udhexeeyey baa la yidhahda labada dhinac xafrigaasay muslimiintu wadeen godkaasaa la qodaya waktigu waa waktigii qabooba ahaa ayuu ku beegan marka waa jiilaalkana madiine aad bay u qabowday maxana aada xun baa ka dhaca wakti abaarana way iskaga beegantaa layidhi gaajo aad u badan baa jirtay iyadoo labadaasiba jiraan oo se axaadiista saxiixa ay tilmaamayso gaajo iyo abaariba iyadoo ay jirto ayaa godkan la qodayo ay muslimiintani wadeen oo aanay wax la cuno aanay haysanin waxaad ka garan kartaa axaadiista saxiixeynka ku soo aroorto qura haddaynu tilmaamno dadka iyo gaajada haysay anas ibnu malik ba wuxuu leeyahay qof yaroo shaciirka midhaa ma kala aqaane waa qamandiheed waa noocaasi un mid kamid a sareen kuwaas baa mid kamid a la yidhahda shaciir in sacab buuxiso oo heed ama qamandi ama sareen waxaasiya ayaa qof la siinayay buu leeyay oo lagu soo daray subag uraya bihaalatin sanika subag iyadoo gabow wuxuu ka qabo yani isbedelay oo riix leh ayaa dadka lasoo hordhigayay buu leeyay iyagoo dadku ay gaajaysan yihiin hunguriga markay sii marayso urtay kugu haysaa kaaga daran buu lahaa waxaan la cunayo yani gaajada iyo dadku wuxuu cunayey hunguriga ka daran waxa kugu filan xadiid imaamu tirmidi warinayo abu talxa baa wuxuu leeyay nabigaan uu nima anagoo gaajo ka ashtakoonayna oo le meeshii gaajaan hayso dee waxba wax gaajo jira ay sheegaya markaasaanu calooshayada tusinay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam anagoo dhagax caloosha ku xidhan gaajo daraaddeed bay dhagax caloosha ku xidhan yihin nabigu calayhi salaatu wasalaam isna beerkiisu ka qaaday buu yihi maradoo isagu 2 dhagax ku xidhnaa buu yihi yani gaajay ka cabanayeen oo waxay lahaayeen dhagaxba caloosha noogu xidhan gaajo daraaddeed wuxuu tusiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo isna beerka 2 dhagax ay ugu xidhanta iyadoo caynkaasiya haddana saxaabadu dadaalayeen oo la isku dayayey in la qodo oo aan haba yaraatee loo nasanin waxaa axaadiista qaarkood tilmaamaya yani wuxuu maala xadiiska bukhaari warinaya jaabir uu soo arorinaya wuxuu leeyahay maalintii khandaqa waanu qodayn dabeetana kudya shadiida ama dhagax baa nagu soo baxaya adag oo aanu u taag weyno markaanu u taag weynaanu nebiga u yeedhaynay buu leeya calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu ku daadegay uu odhanaya aniga ku degaya ii baneeya isagoo caloosha dhagax ku xidhan buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam annaguna maalmaha qaarkood 3 cashaanu joognay buu leeyay oo laa nudiiqu dawaaqan wax la dhadhamiyo annagoo aan dhadhamin yani rag godadkaana qodayo saa u shaqaynaya 3 maalmoodoo isku xigtana aan oomataba ka daadegin 3 maalmoodoo isku xigtana aan oomata ka daadegaynin laakiin iimaanka iyo islaamnimada inay u dagaalamaan ayaa qadaayaadkan keenaya dhammaantoodna godadkan waa la wada qodaya iyadoo aan ninaba ka dib marayn iyadoo dhaguxa caloosha ugu xidhan yahay iyadoo baahidu sida tan u badan tahay ayaa la waday nebiguna calayhi salaatu wasalaam saas buu kagala qaybgelaya oo kula waday isagoo ay yani heesahan yaryaro godadka lagu qodiyo waxa kanoo kale iyadoo la wada wado oo nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam allahuma ina alcaysha cayshu laakhira faغfir lilansaari wlmuhaajira ama allahuma laa caysha ila cayshu laakhira faغfir lilmuhaajiriina walansaar labadaba oo lasoo aroriya ilah nololay ma jirto ta aakhira mooyaane yani adduun gaajadiiyo dheragtii waa isku nooc nololay ma taalla adduune ilah nololay ma jirto ta aakhira mooyaane ee dembigooda dhaaf muhaajiriinta iyo ansaarta ayuu nabiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam iyaguna waxay markuu weedha idhaha ama beytka markuu nebigu qaado
iyana way u jiibinayeen iyagoo le naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqaynaa abada riwaayaadka qaarkoodna cala alislaami maa baqaynaa abada waxaanu nahay kuwii nebi maxamed heshiidka la galay inay la jihaadsamaan inta ay nool yihiin dagaalka inay la galaan nebiga maciisa saasaanu heshiis ku gallay iyana heestaasay dhanka kale ka qaadayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu kala qayb galaya godka qodistiisa laakiin ma ahayn kala qaybgalku kanay madaxda maanta sameeyaan in ramsiya yani dad meel ka shaqaynaya intuu yimaado idhaa mashrafadday dhibanto xabad ku saydho uu dabeetana dhaqaaqo isagoo taygiisa xidhan kaa ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam si dhaba ayuu ula shaqaynayey isaga oo ciidda guraya isaguna saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu leeyahy waxaan arkayay nebiga oo boodhkii iyo wuxuu siiga siday ay ciidda qarisay buu leeyahy timo badan buu ku lahaa buu leeyahy calooshiyo dhulkanoo meeshoo dhan ay wada boodh iyo siiga tahay ciiddu sidaa u guraya ciidoo qura muu guraynine waxay saxaabadu tilmaamayaan marka ay nagu adkaato ee meel la jebin kari waayo ama daraqlayaasha ay u taag waayaan ay timaadana isagaa loo imanaya ilahay rasuulkiisiyo halkan waa u taag weyn anaa daadegaya ii dhiiba buu lahaa markaa madaraha yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida askariyaga kamidii uu shaqaynay buu ula shaqaynayay ee mid ramsi oo ah in maqasa lagu jaro ama masharafad inta la daro in la dhaafo ah muu wadin ama hal dhagax inta la dhigo in dhinaca kale laga maro dadka taasi ma ahayntiisiyo si dhaba ayuu la shaqaynayay waxaa dhacaysay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa la ydhaha maalintaasi wuxuu aad ugu heesayey o uu qaadayay kalimaad yani gabay uu leeyahay cabdillahi ibnu rawaxa gabaygiisii ah allahuma lawlaa anta ma htadayna walaa taصadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alala ragabu calayna oo fii riwaaya yani riwaayad kalea jirto aan ragib uu sheegi jirin ina alala qad bagaw calayna riwaaya kaloo sheegtaa jirta calaa kulli xaal gabaygaas buu nebigu qaaday isagoo weedha ugu dambaysa kolba jiidaya yani waa waxyaabahan lagu madadaasho marka shaqada la wado hab iyo hidowda kaas buu waday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacaysay marka ay gaajadu badatay ee rabshadu ayaa jaabir ibnu cabdillaah wuxuu leeyahay waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa juhud iyo dhib haysata markaasaa haweenaydiisii buu tego wuxuu dhinaa wax labana ma haysaa waxar yaroo meesha joogay neef yaroo ari oo meesha joogay iyo in yaroo shaciiray tihi dee intana aan cajiimo neefkanna wuu qalay birtuu mariyey waxay tihi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u taguuna dhegta u saaro isaga iyo dee mid kale hadduu soo raaci karaa soo raacama ha yimaada jaabir ibnu cabdillahi wuxuu leeyay nebigaanu imi calayhi salaatu wasalaam gaajadii markaan yaaba iyo dadkii siday yihiin markaasaan u yeedhaa idhi ilahay rasuulkiisiiyo in yaroo raashin aan sameeyeyna keen jaabir ibn cabdillahi markaa wuxuu rabaa inuu nebiga u qarsado oo de intan yar nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo siiyo ilahay rasuulkiisiiyo in yar baan halkan ka sameeyeyna keen nebigu ciidankii meesha qobay buu ihi kaalaya jaabir baa raashin inoo sameeyeyna soo dareeriye waa waxar yar waxa la qalay ciidan dhowr kun oo nin ama kun nin ka badanina waxbay qodayaan wuxuu yidhi soo dareera jaabir baa raashin inoo sameeye jaabir wuxuu leeyahay markii uu dhawaaqay ayaa rag kun nini soo dhaqaaqeen dabeetana waa kajilay buu yidhi waxaan sameeyaan garan waaye waa iska horgalay nawadii buu yidhi gabadhii waxay aragtay dee ciidankii muslimiintaba soo dareeraya lacagka yar qashay iyo inta yar raashidi wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay baa inoo barakeeyo bermada yare bahasha ku jirto dherigeena dabka ha ka qaadin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu